أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دما walaalaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee ku xidhan channelkeenan Fatima Muna channel khayr iyo barwaaqo badan ayaan idin rajaynayaa meel boodaafaha dunida kala joogtaan iyo xilli walba uu idin soo gaaro oo daawataan videogan. Halkan waa magaalada Sheekh amba degmada Sheekh iyo waliba soo dhaweyntii iyo xafladeyntii 18 May oo ah maalintii Somaliland ay la soo noqotay qaranimadeedii ay ka baxday amba ay ka go'day intii kale ee Soomaaliya oo maanta ay ka soo wareegtay 34 sanadood. muddadii ugu dambeysayna waxaa ka socday dood maaragtay culimada wadanka calanka Somaliland bacdamaaba uu ku qoray tawxiidka inaan dhulka la dhigin, inaan dhexda lagu xiran, inaan la ixtiraamo oo kor loo qaado oo la weyneeyo. run ahaantii ilaahay taasaynu ka baryaynaa. haddaba haddaan u soo noqdo xafladeyntii ka dhacday degmada amba magaalada Sheekh. runtii Sheekh waa magaalo yar oo u dhaxaysa Berbera iyo Burco. Berbera marka laga soo baxo dadka aan aqoonin juqraafiga Somaliland waxay ku taalaa jidka u dhaxeeya Berbera ilaa Burco dhexda ayay ku taalaa. waana meel buuraley ah oo aad iyo aad u qurux badan. maamulkii Ingiriiska ee maxmiyadda ay u ahayd Somaliland 6 bilood ee kulaylaha waxa uu iman jiray magaalada Sheekh oo uu guriga ka dhistay oo iskuulkan maanta iskuulka Sheekh ee caanka ah ee imtixaanaadka IGCSE-ga iyo A level-kaba lagu sameeyo ee uu asaasay markaasi Ingiriisku ictiraafsan yahay aan idhaahdo exam center-ka. waxaa lagu sameeyaa guryihii Ingiriisku xilligaasi uu dhistay oo runtii guryo aad u qurux badan oo aad u adag ah. degmaduna aad ba u horumartay, dadka shicibkiina guryo badan ayay dhisteen, maasha Allah tabarakallah. sidoo kale hoteelo dhowr ah ayaa ku yaala magaalada. waxaa ku yaala restaurant weyn oo la yiraahdo Daray. mala restaurantyo kalena way ku yaalaan laakiin kaasa ugu caansan inta aan arkay. maasha Allah. laakiin dadkii reer Sheekh way soo baxeen iyaga oo markaasi u dabaaldegaya 18 May. video yar oo gaaban ayaan idinka soo duubay si aad aragtaan magaalada Sheekh maanta waxa ay ku sugan tahay. halkan waa gaari yar oo baabuurada yar ee tagaasida ah oo isaga dhan lagu xardhay aan idhaahday oo lagu sawiray calankii. sidoo kale shicibku labada dhinac ee wadada ayay taagnaayeen. halka stage-ka oo hadda aan usii socdo waa meesha hadda arkaysaan madaxdii ayaa fadhida iyo martidii maaragtay loogu talagalay in ay kasoo qayb galaan 18 Mayda. runtii dadku guud ahaan reer Somaliland waa dad nabadgeliyo oo mar walba meelahaasi la isugu yimaado, maasha Allah tabarakallah. iyadoo dad aad u fara badan meel walba goob walba oo 18 May loogu dabaaldegayo ay isugu soo baxaan, haddana wax dambiya oo ka dhaca iyo wax dhibaato ah lama arko. Allahumma lakal hamd. maasha Allah si qurux badan ayay dadku u wada labisnaayeen, si qurux badan ayay u dabaaldegayeen. dabcan heeso iyo ciyaar Soomaali iyo muusig ayaa ka jiray meesha, laakiin codka waan ka xiray. laba sababoodba waan uga xiray. midi waa midoo channelkayga music oo dhan dabcan waan ka ilaaliyaa wixii musiga oo ma garanaysaa bacdamaaba aanu music banaanayn diiniyan. midna waa midoo YouTube-ka laftigiisu uu kasoo horjeedaa in aad gashatid heeso adigu aanad xuquuq tabic amba copyright-kooda aanad lahayn.
marka taasna youtube-ka laftigiisu kugu ganaaxaya marka tii ilaahay baaba ka weyne waan ka xidhay codka ma maqlaysaan hadda codkii originalka ahaa codkayga anigu aan dul saarayo unbaa idin soo gaadhay oo arkaysaan maasha allah tabaaraka allah xafladeyntan iyo dabaaldega 18 May waxa ay bilowday run ahaantii xalay ayay bilowday maalmahan oo dhan xafladeyn ayaa la iskaga jiray maasha allah arkaysaan inanka dhalinyarada ah ee askariga sidoo uu labisan yahay inan qurux badan dhar qurux badan xidhan maasha allah marka waxa weeyaan aan idin wada xafladan waxay bilaabmatay dhowr cisho horta dadku way dabaaldegayeen ha yeeshee xalay ayaa magaalada maaragtay dabaaldegeedii ka bilaabmay runtii xalay maanu bixin laakiin waxa gurigeygaba nagu soo gaadhay oo aanu maaragtay maqlaynay oo aanu arkaynay rush fireworks rush waxa loo yaqaano oo ah marka waxyaabo qarxa oo cirka ku qarxa oo maaragtay qurux iyo light maaragtay sameeya marka rashka ayaa xalay oo dhan maaragtay cirka loo tuurayay dabaaldegii oo maaragtay xalay to bilaabmay stage-kan dad badan ayaa ku dabaaldegayay kadibna waxa wiilkayga oo dukaan usoo baxay ayaa ii sheegay laakiin xalay anigu maan soo bixin laakiin maanta ayaan jeclaystay in aanu soo baxno oo aanu waliba vlogan yar maaragtay aan idinku tusayno magaalada sheekh iyo qaabka ay uga dhacday soo dhaweyntii 18 May ayaan idinku soo duubay halkaas waa stage-kii madaxdii iyo martidii maaragtay VIP-ga ahaa ay fadhiyaan ما شاء الله تبارك الله إلهي سبحانه وتعالى نبتقليذا الله ينو أتكيو راية التوحيد على كينا إنو دوراني إنو كقرانو تيس الرئيسة مرولبا إن شرف إيو احترام إيو وينين تاي نغا مدن تاي دادكي كصوبحا الله ينغا ييرو إلهي سبحانه جل في علاه علمدين الدمان خير كمر والبا إنو الشيغا إلهي جزائي قوذا چندا الله كدقو إلهي سبحانه وتعالى سومالي لان إيا جيغا سومالي دا دمان إيا وليبا مارتاي دولكا إيا مسلمين تاميل والبا أي چوغان إلهي نبتقليو إيا برواقو إيا وناق iyo muslimiinta oo dhan maaragtay midnimo iyo khayr dhamaantii ilaahay ha ku sugo ilaahay subxaanahu jalla fi culaha muslimiinta daafaha dunida qaaradaha adduunka oo dhan waxaynu uga baryaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr dhamaantii uu siiyo horumar iyo wanaag ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo diinta islaamka tamasukeeda inuu qofku diintiisa qabsado ومحي هيدا كسعودة وعروتي صبرا يعني آخرية الدنيا بقى إلهي سبحانه وتعالى خير كأدونك كآخرة بقى يعني إلهي ويدي سنينا طبعا مقالة الشيخ ومقالة ير هدنا ما شاء الله والله السيدة نموذيني معها ما شاء الله تبارك الله ومقالة آد وناكسن ودقن شوي كذا أياد دقن دد كذا أياد دقن كسود وينيا xalay waxaan noo da-ay roob aad shalay aan idhaahda xalay maha shalay waxaan noo da-ay roob aad u badan labadii maalmood ee ugu dambeysay hawadu way kululayd oo kulaylka aad iska garanaysid inuu yahay kulaylka ka horeeya maaragtay ka horeeya ciidamadii weeyaan kuwani kulaylka ka horeeya markaasi roobka ayaana helay laakiin maasha allah tabaaraka allah waxa weeyaan roobkii ayaa haddana helay shalay duhurkii ilaa maghrib ka hor ayuu istaagay casar dheer ayuu istaagay maasha allah roobkii roob aad u quwad weyn uu ahaa magaaladana sideedaba waa magaalo cagaaran waanu u bixi doonaa magaalada duleedkeeda iyo meelaha dalxiiska loo tago buuraha iyo meelaha biyo dhaca iyo meelaha qurquruxda badan waan idin soo tusi doonaa biidni illaahi tacaala laakiin insha allah maalmo kale ayaan halkaa idin soo sawiri doonaa meelaha goobaha quruxda badan ee magaalada sheekh ay caanka ku tahay ay runtii kaga duwan tahay dabiicadda iyo dhulka meelo badan oo dhulka Soomaalida ah amba gaar ahaan Somaliland
meelo badan ay kaga duwan tahay ayaa jira magaaladan sheekh bacdamaaba magaalo cagaara ay tahay jawigeedu fiican yahay buuro ay tahay jawi buuro ah oo aad u qurux badan runtii in qofka Somaliland yimaada ee aan weli sheekh iyo agagaarkeeda aan arkin wax badan ayaa idinka maqan ayaan idin leeyahay magaaladu waxay leedahay hoteelo lagu soo dago hoteelka maaragtay aan shalay daraato aan soo wareystay hotel anagu guri baan kareysanay guri weyn oo wanaagsan oo waliba cusub oo dadkii ugu horeeyay degay aanu noqonay maasha Allah tabarakallah laakiin hoteelka waan soo wareystay maalin dhaweyto waxa ay igu yiraahdeen in waxa aanu ka kiraynaa qofka single-ka ah halkaas maaragtay qol single-ka $10 habeenkii halka aanu kaga kirayno maaragtay caailada amba anu markaa waxaan ku yiri 3 qof imisa kaga kiraynaysaan waxay yiraahdeen 16 marka kulay haddaad muddo dheer joogaysana de qiimo dhimis waa lagu sameyn hoteelo kala oo dhowrana way jiraan bay igu yiraahdeen laakiin kan ayaa maaragtay ugu wanaagsan buu igu yiri inanku bacdamaaba hotel weyn oo fooqa uu yahay hotelkaas oo wareystay insha Allah waxaan isku day doonaa inaan hoteelada soo arko oo aan qolalkooda soo sawiro haddii ay iga ogolaadaan qolooyinka hoteelada iskale si aan fikrad uga wada qaadano oo anaga laftigaygu aanu ogaano haddaanu guri weyno ma garanaysaa mararka dambe inaanu bal hoteeladu ay noqoto meelo ma garanaysaa yani qofku muddo dheer degi karo qiimayaashaan soo ogaano insha Allah biidhnillaahi tacaala haddaba halkan ayaan ku dhammaynayaa vlogan yar ee aan idinku tusayay magaalada sheekh sida looga dabaaldegay xuskii maalintii qarannimada Somaliland 34 sano ayaa kasoo wareegtay markii lagu dhawaaqay madax banaanida Somaliland waxa aan idin tusayay waa 18 May sanadkii 2025 iyo degmadii sheekh aad iyo aad baan idin salaamaya khayr iyo barwaaqo badan ayaan idin rajeynaya waxaan idinkaga tagayaa fi amaan illah astawdactukum illah alladhi la tadhi'u wadaa'i'u wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh subxaanaka allahuma rabbana wabihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk